مرحب مرحب يا هلال، أهلا أهلا كيف الحال؟ قد غبت وإليك اشتقنا، وانتهى بعدك صار وصال. نعطي صبرا نأخذ أجرا، والله يرانا ويسمعنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أيها الإخوة، إلهي أيام الله سبحانه وتعالى، ما أنت وحن كهلنا الرمضان والوقت، أما الوقت والرمضان، أما إضاعة الوقت في الرمضان. رمضانك هي وقتك، وقتك ووقتك وزمنك وساعدها وأيامها وعمرك بلي آدنك. رمضانكنا waqtigaagaas dhexdiisa ayuu sanadkii bil imanaya. marka waxaa la idhaahdaa waqti aw waqtigu qaalisan yahay uu ka qaalisan yahay waqtiyadii kale. waqtigaagii caadiga ahaa ee sidiisaba qaaliga ahaa iyaa laakiin maalmaha ramadaanka qaali noqday. ramadaanka wax wal oo khayrihi qaali buu noqdaa, wax waloo bili aadan qabto khayra qaali buu noqdaa. salaada qaali noqonaysa oo ka qaalisanaanaysa sidii hore, zakada qaali noqonaysa iyo sadaqada oo ka qaalisanaanaysa sidii hore. sidaas oo kale ayuu waqtiga naftiisuna qaali u yahay, oo saacadihiisa ayaa qaaliya, ramadaanka midhidhadiisa ayaa qaaliya. sidaa daraaddeed waxaa la odhanayaa ramadaanka markuu soo galo oo saalixiinta iyo mu'miniinta caadadooda ah inay yidhaahdaan ma dayacayo oo ma halaynayo waqtiga qaaliga ah, ma dayacayo waqtiga istijaabo dacwaha ma dayacayo. waqtiyaasha ramadaanka oo dhanna ma dayacayo, lianna cibaadadiisa ayaa qaaliya oo qiimo badan iigu fadhiyaysa. walaalayaal, markuu qur'aanku ka hadlayo waqtiga wuxuu ka cabiray dhaar buu ilaahay ku cabiray. waqtiyadoo dhan buu ku dhaartay, hadday tahay walcasr, hadday tahay walleyl, hadday tahay washams, hadday tahay walqamar. waqtiga iyo wuxuu wato oo dhan buu ilaahay ku dhaartay, wuxuuna ugu dhaartay ahmiyadiisa. suuratulcasr markuu ilaahay casriga ku dhaartay wuxuu ku xujisiiyey ina alinsaana lafii khusr, insaanku waa khasaarsan yahay, ila aladiina aamanuu wacamiluu saalixaat watawaasow bilxaq watawaasow bisabr. insaanka adduunka ku nool afartaa sifo un waa inuu ahaadaa, haddii kale uu khasaarsan yahay. aamanuu, mu'min waa inuu ahaadaa, camal saalixana uu la yimaadaa, waa inuu khayrkana ku dardaarmaa, sabirkana ku dardaarmaa. afartaasina afar isku xidhan oo mid keliyaata isku ah. waqtiga wuxuu ilaahay ugu dhaartayna waqtiga ayaad khasaarinaysaa oo kaa khasaaraya, lianna cumrigan baaba tahaybaba. ilaahayna subxaanahu wa tacaala marka qiyaamo la yskugu yimaado ee insaanku calaacalo ou yidhaahdo ilaahow rabbi irjicuunii lacallii acmalu saalixan fii ma taraktu, ilaahow iceli han wanaag soo sameeye, ilaahay wuxuu odhanayaa awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakar. cumri nima siinin, waan ni siinay cumri, haddaba halkaa iska fadhiya. cumri maadaama ni siinay, wax maanta laga hadlayaa ma jirtee cumrigii lagu garan lahaa wax maanan ni siinin. 30 baan ku jirsiiyey, 60 baan ku jirsiiyey, 80 baan ku jirsiiyey, waxba waad ku garan weyday, waxba maanta kama jiraan. xadiidkii nebiga, lan tazuula qadama cabdin yowma alqiyaama, addoommaha gommadahoodu ka suuli maayaan qiyaamaha inay taagnaadaan xataa yus'ala can 4, ilaa 4 arrimood la weydiinayo. waxaa ka mid ah can cumrih fii ma afnaah, cumrigiisii halkuu ku dhammaystiray. hadduu 50 aha xagguu ku dhammeeyey, hadduu 80 aha xagguu ku dhammeeyey, hadduu 20 aha xagguu ku dhammeeyey ayaa la weydiinayaa. su-aashaasi nebigaa ka jawaabay calayh salatu salaam isagoo qiimaha sheegaya, qiimaha waqtiga. wuxuu idhi nicmataani, 2 nicmadood ayaa maqbuunun fiihimaa kahiiru min annaas, dadka intooda u badani ama in badani ay ku khasaareen. tijaaro lagu khasaaray, daal lagu khasaaray, soo jeed lagu khasaaray, dhidid iyo tacab lagu khasaaray. bimacnaa waa 2 nicmadood
oo ilaahay dadka siiyey oy laakiin ku khasaarsan yihiin ay dayaceen ay cidla ku tuureen alsixatu waalfiraaq caafimaadka iyo firaaqada aad haysato iyo jaaniska aad haysato weeye taas baa ah haddaad ka faa'iidaysan weydo qof khasaariyey oo kale ayaa tahay ibnu mascuud radia allahu canhu wuxuu yidhi maa nadimtu kamaan nadaamoonin oo kama murugoonin nadami sidaan uga nadaamoodo ama uga murugoodo yowman maalin qarabad shamsu cedceeddiisu dhacday naqasa fiihi camalii camalkaygu naaqusmay walam yasdad naqasa fiihi cumrigaygu naaqusmay walam yasdad fiihi camalii camalkayguna siyaadoobi waayey oo waxba ku biiri waayeen bimacnaa waa yowm kasta oo yimaada cumrigaagaa naaqusmaya diid ama doon cumrigaagu waa naaqusmayaa su-aashu waxay tahayse inaad isweydiisaa hal isdaada fiihi camalii camalkaygu muu siyaaday am lam yasdad am mise muu siyaadin su-aashaasaad weydiinaysaa laakiin cumruka yanqus haadaa laa maxaalata fa inahu yanqus xatman waa naaqusmayaa cumrigaagu laakiin hal isdada camalan camal ma siyaadsatay khayr leh maaha camal shara maaha naar aad sii urursato ee khayr ma siyaadsatay weeye ibnulqayim raximahullah arrinkaa isagoo ka hadlaya wuxuu yidhi acdamu ribx macaash u weyn oo bini aadan helo faa'iido oo bini aadan helo waxa ugu weyn adduunyada buu yidhi an yushqila nafsahu wa waqtahu an yushqila nafsahu kula waqtin inuu naftiisa ku mashquuliyo waqti kasta bimaa yanfacuhaa wax anfacaya wa kayfa yucqal sidee u noqoni caqli inuu qof ku tagsiiyo maalintiisiyo cumrigiisa ku tagsiiyo ku dhammeeyo shahwata saaca shahwad iyo jacaylo iyo wax uu isagu wanaag u arkayey oo ajar loogu qoraynin inuu ku tagsiiyay qaldana ibnulqayim raximahullah wuxuu ku sii biiriyey arrintaasi wuxuu yidhi idaacatlwaqt waqtigoo la dayacaay ashaddu min almowt mowtkay ka adag tahay waqtigoo la dayacaay mowtka ayuu ka adag yahay waa su-aal yaa badan walaalayaal mowtku waa maxay waa la dhintay waqtigoo la dayacayna waa la iska ciyaaray waqtigaagii oo dayacday waxaa laga yaabaa meel ajar lagaaga qorayna bilcagsi dembi lagaaga qoraayo inaad taagnaato oo ilaa gomaduhu ku bararaan inaad taagnaato ilaa dhabarku ku xanuusto inaad taagnaato ilaa jilbu ku xanuustaan laakiin meel khayr lagu hayo oo lagu tukanayo cibaado inay kula adkaataa dhici karta markaa su-aashani waxa weeye idaacatlwaqt waqtigoo la dayacaay ashaddu min almowt mowtkay ka daran tahay iyuu ibnulqayim yidhi isagoo sii tacliilinaya wuxuu yidhi almowtu mowtku yaqdacuka wuxuu kaa jarayaa yaqdacuka min addunya adduunyada unbuu kaa jarayaa iyo mashaakisheedii iyo qaxarkeegii unbuu kaa jarayaa wa yuusiluka billaahi walyowmi alaakhir ilaahay iyo yowmulaakhirna waa kugu xidhayaa amaa idaacatlwaqt miya dayaca waqtiga la dayacay miyaa yaqdacuka can illaahi wa can yowmi alaakhir allah iyo aakhiraba waa kaa jarayaa waqtiga aad dayacday lianna waxaa tahay insaan iska jooga oo allana la xidhiidhsanayn aakhirana wax hore ugu dhiganaynin idan waxaad dayacday aakhiradaadii waxaana dayacday xadhiggii ilaahay waa markaaad ku jirto waqti dayaca aad ku jirtee markaasi mowtka ayaa ka culus ayuu yidhi ashaddu wuxuu ka culus yahay idaacatlwaqt ashaddu min almowt mowtka ayay ka culus tahay ayuu yidhi raximahullah walaalayaal marka laga hadlaayo waqtiga dadkii saalixiintii si xooga ayay uga hadleen aad iyo aadna way uga hadleen waxayna kaga hadleen arrimo badan oo ku saabsan waqtiga sida loo dayaco waxaana la inagu filan aayaadka qur'aanka iyo axaadiida intaa ka soo maqallay ilaahay nagu anfaco markaa maalmaha ramadaanka waa inaan u tirsannaa si qaaliya waxaa tahay bay ka dhigan tahay nin suuqa jooga oo maanta suuqu xaami yahay haddii uu ka habsaamo waa la waayey waqtigaa qaaligii wa tegay bay ka dhigan tahay waxaan u fiirsannaa mararka qaarkood haddii meel laysqoraayo oo meeshaasi laguu qabto muddo inaad muddadaa haddaad ka habsaanto lagugu soo celinaynin inaad ka sii habsaantood ka sii maqnaato ma dhici karto saa darteed baariyoodka ina maraaya oo ramadaanka oo 30 maalmooda inayna si dhayale inagu dhaafin ayaa la rabaa ilaahay nagu anfaco
وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.